waalid ahaan maxaa keena inaad ka carooto carruurtaada? maxaa keena? sababo badanaa keeni kara inaad carruurtaada ka carooto. waxaa laga yaabaa in carruur oo disable ay kuu joogto ama carruur SCN ay kuu joogto. laga yaabaa. waxaa laga yaabaa shaqada inay kaa badatay, inaa adiga xanaaqdid, markaas kabacdina carruurtii aa kala dul dhacdid xanaaqaas adigoona ogeen. sababtoo ah shucuurta, markii shucuurtaas aad dareentid xanaaqaas aad dareentid, qof kastaa kala kor dhacaysaa haddii aadan kontroolin. waxaa laga yaabaa in eh, muran dhex maro waalidka. waxaa laga yaabaa inuusan waalidka uusan garanaynin tarbiyadda carruurta, tarbiyeenta inuusan ama barbaarinta ubadka inuusan waalidka garanaynin. waxaa laga yaabaa guriga inuu kugu yar yahay, guri cariiriyo dadka dhan sanka liskaga jiro kaleeto oo cariiriyo kaleetona way keeni kartaa inaad adiga xanaaqdo, markaasna kala dul dhacdo carruurtaada kala dul dhacdo. waxay keeni kartaa inuu qof waalidka stress inuu dareemo kaleeto, sida caafimaad darro inuu haysto waalidka kaleeto, in macnaha waalidka hurda la'aan ay ku dhacday. hurda la'aanto kaleeto way sababtaa xanaaqa wuu sababaa. waxaa kaloo sababa in qofka uu jiran yahay, caafimaad darro ay haysato. waxyaabaha kaloo keena inaad carruurtaada ku carooto aad ka xanaaqdo waxaa keeni kara in canugaaga uu kula shaqayn waayo. waxaa u dirtay kaama yeelin, war waxaan sameeye homework sameeye kaama yeelin, waa u caroonaysaa. waxaa laga yaabaa inuu kula murmo cunuga. hadduu kula murmo waa u caroonaysaa, xanaaqa wuu keeni kartaa. inuu ooyo maantao dhan ama oo ooyo wax kastoo aad samaysaba oo aada qanci karaynin ama uu qeeliyo na waa keeni kartaa. in carruurta ay isdagaalaanna xanaaqaas wuu keeni karaa. marka waxay ahayd xanaaqan waxay ahayd waalidka. waa maxay sababaha waalidka ku keenta xanaaqa inuu u xanaaqo carruurtiisa? sababahaasoo dhan ha keeni kara. haddaba waalidka, adiga waalidka ah, haddii aad xanaaqdo saameyn ceynkee ayay ku yeelan kartaa carruurtaada? horta guud ahaan waalid ahaaw, waayeel ahaaw, ciroolo ahaaw, carruur ahaaw, xanaaqa waa laga wada sameeya, waa la wada xanaaqaa, waa shucuur ilaahay nagu abuuray. laakiin xanaaqa haddii uu gaaro mar aad kontrooli kari weyso, inaad kontrooli kari weyso caradaada, aad kontrooli kari weyso xanaaqaaga, dhibaato badan ayay u keeni kartaa carruurtaada. carruurta ka soo toosa guri la caraysan yahay, ama aabbaa caraysan yahay, ama hooyada caraysan yahay, ama labadaba ay caraysan yihiin, waxay ku keeni kartaa carruurtaada caafimaadka maskaxda, ya ay ku keeni kartaa noloshooda dambe. hadda keliya ma saameynayso oo keliya, waxay saameynaysaa xitaa noloshooda dambena way saameynaysaa. waxay ku keenaysaa in korriimada maskaxdiisa ay khalkhal gasho, korriimada cunuga maskaxdiisa inay khalkhal gasho, inay ku adkaato canuga inuu kontroolo shucuurtiisa. waalidka marka uu xanaaqsan yahay, haddii uu yidhaahdo waxyaabo xunxun sida doqon yahow, eyga, hadalladaasoo kaleeto, hadallo xunxun markuu yidhaahdo, cunuga wuu keedinayaa. waxaa laga yaabaa xitaa inuu isku qaato inuu saas yahay, wuuba aaminayba inuu doqon yahay, sababtoo a waalidkiisa ku yidhahda markasta ay xanaaqsan yihiin. okay, markii oraahdaas xunxun lagu yidhahdo, cunuga wuxuu dareemaya qiimo darri. saameynta ay ku leedahay xanaaqa waalidka carruurta waxaa ka mid a cunuga inuu noqdo mid xushmad daran, xushmad laawo inuu noqdo, ruud inuu noqdo, inuu dagaallo noqdo, dagaal ka soo horeeyo. waxay ku keenaysaa cunuga, waxaa ku adkaanaya in carruurta kale oo la ciyaaro, way ku adkaanaysaa. waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid aamusan oo ooyin badan. haddii waalidka uu kontrooli waayo xanaaqiisa, saameyn ayay ku yeelanaysaa carruurta, khaasatan markii oraaha xunxun uu adeegsado waalidka. heerkiisa xanaaqana uu gaaro heerka shanaad, heerka guduudka ah. qofka markuu xanaaq la guduud, markuu saas noqdo kaleeto, uu oraaha xunxun u yidhaahdo, kontrool uusan haynin, markaas waxaa laga yaabaa canuga saameyn inay ku yeelato weyn, sida aggressive inuu noqdo, dagaallow, feejignaan la'aan, carruurta inuu la ciyaari kari waayo, inuu noqdo mid aamusan oo ooyin badan, inuu noqdo mid hurdada ay ku yaraato ama oo hurdi waayo inuu noqdo. haddaba adiga waalid ahaan sidid ku kontrooli kartaa xanaaqaaga?
waa iska caadi inaa xanaaqday, laakiin markaad dareemayso xanaaqaaga meel sare inuu joogo waa inaa isdejiso, waa inaa ka fikirto waxa aad leedahay inta aadan dhihin ka hor, waa inaa ka fikirto sida inaadad qaylin, inaadan hadallo xunxun aada ku dhihin carruurtaada. isku soo duuduub 3 qaab oo jaranjaro oo kaleta eed adeegsanaysaa si aad xanaaqaaga u kontrolsho. waa 3 qaab inaad soo gudbiso, inaad tiraahdo cod dheer ku dhihi maysid, cod gaaban ku dhihi maysid, waxa aad ka xanaaqdaa sheegaysaa iyo waxa aad doonayso qofka inuu sameeyo kaa xanaajiye, intaasaa sheegaysaa. haddaba caradaada haddii aad qabirto inay cuqdad ay noqoto, hodhootina ay isku bedesho inaad dadka mataqaanaa gadaashooda aad ka hadasho, oo mataqaanaa aad lugoyso, oo aad mataqaanaa ku jeejeesto, oo mataqaanaa aad jillaafayso gadaashooda ay noqonaysaa haddii aad qabirtana. haddii aad qabirto waxay kaloo keeni kartaa hypertension, blood pressurekaaga kor inuu keeni kartaa. markii carada aad qabirto inaad tiraahdo caafimaadkaaga ku jira, inaad sheegto si wanaagsan u sheegto caafimaadkaaga ayaa ku jira. qofka carada isku qabira ee aan hadlin xitaa waxay ku keentaa inuusan xiriirkiisa dadka kale wanaagsanayn. qofka waxay ku keenaysaa xiriir kasta uu sameeyo, sida hadduu guursado kale, reer yeesho kaleeto, maadaama wax kasta uu isku qabiraayo oo isku kaydinayo, dhibaatay u keenaysaa iyo stress iyo waxay u keenaysaa iyo depression iyo qofka inuu mataqaana gadaashiis ka hadlo, dhibaatadaasay u keenaysaa. stageka 3aad waa inuu qofka isdejiyo, calming yourself down. dareemahaaga shucuurtaada aad xakameynaysaa, waa xakameynaysaa shucuurtaada. waxaa idhi 2 qayb oo u dareemaysaa shucuurtaada. midda koowaad waxaa u dareemaysaa inaad neef tuurto, wadnaha oo ku garaaca, inaad mataqaanaa lugahaaga daciifaan, in mataqaanaa kuleel aad dareento, inaad dhididdo, waa ku dareemaysaa, saad ku dareemaysaa jismi ahaan. maskixiina waxaa ku dareemaysaa inaad miir daboolanto, inaadan kontrooli karin wax aad leedahay ama wax aad samaynayso. markii aad saas dareento kaleeto waa isdejinaysaa. sida aad isku dejinayso waan ii sheegi doonaa istiraatiijiyada aad isticmaalayso aad isku dejin doonto. waalid ahaan marka sidee xanaaqaaga ku kontrooli kartaa, sideed ku dejin kartaa? kow, isticaadadaa samaynaysaa. isticaada maxaa lagala jeedaa? acuudu billahi min shaytaan rajiim. carruurtaadana waa baraysaa waqti kasta oo oo gurigaaga aad joogto oo carruurtaada aad la joogto, macalinaad tahay, macalinaad tahay, bare aad tahay, bare. carruurta waa ku eeganaysaa. inaa xanaaqdo inay arkaan waa caadi, laakiin marka aad xanaaqdo acuudu billahi min shaytaan rajiim, acuudu billahi min shaytaan rajiim. 2, quraan ayaad akhrisanaysaa ama dhegaysanaysaa, quraan aad shidinaysaa, aad dhegaysanaysaa, banaanka aadaysaa, waa soconaysaa. waxaan dhan inaa samaysa maaha. hadda waxa isticaadadoo kaleeto waa samaynaysaa, inaad quraan dhegaysto kaleetana waa samayn kartaa, laakiin inta kaleeto hadda tii munaasab ku ah ayaa samayn kartaa. qabaysaa geli kartaa, buuga akhrisan kartaa, gurigaaga howsha gurigaaga iska geli kartaa, alaaba dhaqasho iyo waxaa iska geli kartaa. waxaad la hadli kartaa qof aad u aaminsan tahay, markaasaad qalbigaaga wax ku jiro o dhan oo caradaha aa ku bixaysaa, waa bixinaysaa. ogow haddii aad qabirto ee kugu kaydsantana dhibaataa kaa soo gaaraysa, haddii aad si aggressive usoo bandhigtana dhibaataa kaa soo gaaraysa. marka si tartiiba oo walaalkaas kaleeta ugu sheeganaysaa oo aad aaminsan tahay. wax alla waxaa doonto kaleetaa samayn kartaa, adigu wax uun isku mashquuli. ujeedka waxaas aa u samaynayso waa maxay? ujeedka aa u samaynayso waxa waaye inaad yareyso shucuurtaada, shucuurta aad dareemayso inaad yareyso. shucuurta aad dareemayso stage 5 haddaad joogto kaleeto waa inaad soo dejiso stage 1 aa keento aa lagaa rabaa. ogow waxa kaa xanaajinaya, waxaa la dhahaa triggers, waxyaabaha kaa xanaajinaya marna iskama tuuri kartid, marna iskama tuuri kartid waxyaabaha kaa xanaajin kara, marna ma avoid garey kartid, marna mataqaanaa ma meermeerin kartid. wax kasta oo kaa xanaajinaya maalin kastaa la kulmaysaa, laakiin markii aad xanaaqdo waa inaad kontrooli karta xanaaqaas oo aad barato sidii aad reaction uga bixin lahayd, falcelin sidii aad uga bixin lahayd.